taraysaa bulshada aan la nooshahay iyo Soomaaliya dhanaa wax taray qofka markuu asaga wax istaro ayuu wax tari karaa dadka muhiimadeena horta seminaarka waa alas iyo adeer ayaa joogo iyo liibaan Cabdinaasir waa xogayaha jaaliyadda galbeedka Finland ayaa joogo oo ii sheegi doono Cabdinaasir halkaan uu ku koray wax badan uu og yahay asoo yar oo halkan imaaday labada dhaqan Soomaaliya ka soo jeeda waa Finnish halkan wax ku bartay kulli asal uu sheegi doono Cabdinaasir waxa la rabo qofka in uu nadiif ku noqdo oo horumar ku gaari karo hadda Cabdinaasir waa kana Soomaalida magaaladan uu hogaamiyaa waa for example aad qof noqotaan oo wax qabsataan kulli hadalka ma ku sii dheeraanayo arintaas markaan dhamaysanane waxaan ka hadli doonaa koobka qaboobaha ee dhalinyarada uu qabanayay rag badan oo jeeda oo faraxsanay inay halkaan fadhiyaan oo koobka kuleelaha guul gaaray kuwii qaadeen oo jeeda iyo kuwii laga qaado dib ma lahan kulli waxaan yeeli doonaa haddana xilliga koobka aan qabanaynay iyo inta koox aan ku qabanaynayna waa fursad aan ku dhax farsamaysan karnaa gadaal kuraas noo dhigay xagga tigi doonaa haduu Ilaahay idmo aad ugu faraxsanahay inaan arko seminaaradaana waa badin doonaa in la wada shaqeeyo dhaqankeena iyo diinteena aan ilaalisano waxaasna waxaan ku ilaalsan karnaa wadajirkeena dadku markay wadajir yihiin wax qabsan karaan dalkeena waa ka soo dheernahay dalkaan joognaa dalkan kala dhib kuma qabno maasha Allah si fiican ay noo soo dhaweeyeen jaanis shaqo iyo waxbarashaan ka helnay dhalinyarada waxaan leeyahay waxna barta shaqaysta jaanis aan haystaa ninkii aan ogeyn jaaniska uu haystana waxaan dhihi lahaa waalidkiisa hal mar ha dhaho tiida ii jaro Afrika taga soo arka dadka nolosha ay ku nool yihiin iyo sida ay u survive-ayaan nolol adag ay ku nool wax baranayaan haddana ay shaqaysanayaan marka xagga aad soo aragtid hadda saaxiibkay aawe uu sii ma joogo waa rabi lahaa inuu inta joogo safarkii uu Soomaaliya ka imaado nolol sheekeen lahaa iyo wuxuu soo arkay nolosha way adag tahay dhinacaas marka jaanis ay haysatiin dalka dunida ugu fiican waxbarashada joogtiin waxna barta shaqaysta dhalinyaro badan oo shaqaysato uu ka mid yahay xogayaha jaaliyadda galmudug sharaf ayaa ku jira asiga laftigiisa asoo yar oo halkan imaaday hadda waa ganacsade waa aabbo oo for example in lagu daysado u baahan waa marka adinka way sugaysaa insha Allah annaga markaan aniga Finland markaan imaanayay carruur ma lahayn xaasna ma lahayn halkan markaan imaanayay inigayaan ahaa hooyo ilama socon aabana ilama soconin hooyaday aabahay waa ii imaadeen anigana family aan yeeshay waa taariikh ayadana oo laftirkeeda markan inaan inga sheekeeyo u baahan si taxadar la Ilaahay iga badbaadiyay dhaqamadan inaan si dhexgelin oo aan diinteeda iyo dhaqankeyga aan haysto marka adinka Ilaahay iga baryaa inaad diintiina dhaqankiina ay haysatiin kulli waxaan maleynaa hadalkan kuma fiicnaa daawana si hadlay marka waa isla joognaa waan salaama waxaan rabi doonaa inaad dhalinyarada odayaasha iyo aqoon-yahanada hadalkooda dhegeysatiin kuna wacyi qaadatiin waa muhiim hadalada maanta la indhahayo haddaa mar kharka ka dhacda ma soo noqon kartaan way adag tahay marka maanta nadiif aad tihiin waxaan alla inga baryaa inaad saan nadiif u aatiin ilmihiina aan arko adigoo ilmo leh shaqaysanayo horumar gaaray kadibna ka shaqeynayo bulshadeena sidee ay ku noqon lahayd bulsho nadiif ah waan islaamaya dhammaantiin waan ku faraxsanahay inaan halkan idinku arko. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.